Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida ee nagala socda. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana weli bartanka kaga jirnaa barnaamijyadeennii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan oo aan sida maalinlaha ah halkan idinkaga soo tabinno. Haddaba ciwaanka barnaamijkeenan maanta waxa uu noqonayaa maxay tahay muhiimadda ay leedahay salaada taraawiixda ee sida gaarka loo dukada bisha barakaysan ee Ramadaan. Waxa ay ka mid tahay khusuusiyaadka u gaarka ah bisha barakaysan ee Ramadaan ee Allah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay addoommadiisa inay uga faa'iidaystaan in habeenkii ay u istaagaan salaada taraawiixda. Rasuulkeena suban sallallahu calayhi wasallam waxa uu ina leeyahay qofkii salaada u istaaga asagoo rumaysan ajarna ka raadinayo waxaa loo dhaafayaa dembigiisii hore. Habeenkii oo salaada loo istaago waxa ay ka mid tahay dhaqankii nabigeena suban sallallahu calayhi wasallam. Waxa ayna Caaisha rabbi raaliha ka noqde leedahay nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu ahaa mid aan ka tegin inuu habeenkii salaada u istaago, xitaa wuu dukan jiray isagoo fadhiya haddii uu xanuunsan yahay. Sidaa daraaddeed ayaa waxaa wanaagsan in lagu dadaalo salaada habeenkii bisha barakaysan ee Ramadaan siiba taraawiixda iyo tahajudka in loo istaago, iyadoo u wanaagsan qofka salaadaasi oogayo taraawiixda ama tahajudkaba inuu imaanka la dhammaysto oo salaada ku dukado masaajidda. Maxaa yeelay nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu ina leeyahay qofkii la istaaga salaada taraawiixda imaamka ilaa uu ka baxo salaada waxaa la siinayaa ajir la mid ah isagoo habeenkii oo dhan u soo jeeday una taagnaa salaad. Waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inuu inaga aqbalo salaadeenna iyo soonkeenna. Waxaana dhammaanteenba isfaraynaa in aan ku dadaalno dukashada salaadaha khaaska u ah bisha Ramadaan ee tahajudka iyo taraawiixda oo aan ajirkeeda la soo koobi karin. Allahumma sallimna liramadaan wa sallim ramadaana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma aamin. Halkani waa Somali Voice in Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Nuur Xasan Shiine.